nadra Cumar Jawaab oo kamid ah Guddida taakuleynta dadka Aafooyinka saameeyeen ee gobolka Sanaag ayaa maanta deeq isugu jirta bustayaal dhar gogol iyo kabo waxay gaadhsiisay barakacayaal ku sugan xero kamid ah gudaha magaalada Ceerigaabo waxaana munaasabadii ay deeqdan ku guddoonsiinaysay barakacayaasha ka hadashay nadra Cumar Jawaab taasoo hay'adaha samafalka iyo xukuumadda Soomaaliland halkaasi fariimo dhaadheer uga dirtay waxaana hadaladeeda kamid ahaa maanta waxaan joognaa xeradii madoobe dadkii joogay ee ka soo qaxay Itoobiya waad la socoteen waxaanu ahaanahay guddidii maxay ahaydeen roobowga iyo daadadka markii hore la magacaabay barsaabka magacaabay iyo maayarku taakuleynta Aafooyinka taasoo isagtay kadib markii hawshii soo dhamaatay hadii xeebal tagay hadii magaalkan la yimi oo maalintii hore raashin loo keenay agabkii aan magaalada ka ururinay ee hadharka yar bustayaasha bacaha wixii hadhay waxaan la jeclaysanay inaan ku soo celino aan u keeno oo maalintii hore aanu kala yara habsaanay qolada xerada joogta waxaan jecelahay inay naga gudoomaan bacaha yar waxa ku jira dharkii iyo bicihii la goglanayay bustayaashii iyo bicihii kale yalowga hay roobka intaba waayo waxa loo ururiyay dadka baahan dadka aanu ka soo ururinay magaalada Ceerigaabo jooga waxaan leenahay wixii meel xun may marin markasta qofkii u baahnaa ayaanu u geynay waxaan idila socodsiinaynaa inaan meel kale geynin inaanu geynay halkii ay ugu tala gasheen meel la mid ah waayo dadka halkan jooga iyo dadkii buuraa joogay waa isku mid kuwaasna baahi baad ugu ururiseen kuwana baahi baan ugu keenay marka waxaan leenahay jazakallahu khayr aad baan ugu mahadcelinayaa shicibkii magaalada joogay ee gacantooda baxsaday sadaqadana ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro hay'adaha ku nool Soomaaliland jooga waliba kuwa Ceerigaabo jooga waxaan ka codsanaynaa dadka aad arkaysaan ee idinka muuqda halka cid hay'ad oo timaada ma jirto caawimo loo keenaana ma jirto shicibka reer Ceerigaabo magaalada gudaheeda ku nool umba inta ku nool yihiin labada sano ee dhow waxaan ugu baaqayaa hay'adaha jooga dalka haday Ceerigaabo tahay iyo haday Hargeysa tahayba inay hoos u soo eegaan dadka jilicsan ee halka xerada ku nool ee intay soo qaxeen mid kale waxa jirta hay'adda barakacayaasha ee Soomaaliland hay'adda barakacayaasha Soomaaliland wax allaale waxay ka hayaan ma jirto mana oga umana imanin marka dalkan iyo dadkan idinka ka mas'uul baa leeyahay dawladda Soomaaliland wax allaaliyo wixii barakacayaal ay yimaada waxa tiraahdaan wayno liiskaraysan yihiin haddana idinkama hayno waxaan ugu baaqayaa inay u yimaadaan halkan yimaadaan arkaan dadkan baahidooda iyo dhibaatadooda hay'adaha u keenaan iyaguna ay soo waxtaraan barakacayaasha deeqdan guddoontay qaarkood oo halkaasi ka hadlay ayaa iyaguna u mahad celiyay nadra Cumar Jawaab iyo bulshada kale ee reer Sanaag ee taageeradan soo gaadhsiisay tan iyo kale hore halkan maan joognaa inta walaalaha baan ku noolayn walaalihiin caawinaya khayr Allah siiyo annagana Allah noogu meel qabta iyagana Allah ugu meel qabta annagana Allah noo barakeeyo intaan iyagu baan ku noolayn oo na gacan qabtay oo hadii la yiraahdo waxay noo qabteen baadii alloomba gudi kara iyagana Allah ugu meel qabto maantana maal badan baan noo keenay liibaan badan baan noo keenay iyagana Allah ku liibaano dad waxaana Itoobiya ka soo qaxay qaxootiya Itoobiya intaanu ka soo qaxnay hadda 2 sano iyo sanadii labaad baanu ku jiraa markaas qaxootinimada Itoobiya ka soo qaxay waxaanu ka soo qaxnay meesha la yiraahdo Ceerigaabo meesha hadda waxaanu joognaa Ceerigaabo walaalaha iyo aad bay u mahadsan yihiin ilaa 2 sano iyaga hadda waxaas maanu ku noolahay naloo keeno maanta waxa naloo keena dhar alaab bustayaal gogoshi alaab badan oo nooc kasta leh maanta naloo keenay walaalaha yana aad baan ugu mahad celinaa anaguna waanu ka gudoonay waa sidaas iyo nabadgeliyo wa Abdullaahi Xuseen Darwish Somali Cable TV Ceerigaabo